السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا idin salaamay khiyaarta dhammaantiisa aad u dhantihiin meel kastood kala joogtaan dunida daafeed halkaad igala socotaan waa janalka ladan cabdo fadlan dhegeystow haddii aad igu cusub tahay janalkiina subscribe garee gambalelkan oon ka dhigo si uu kuu soo gaaro muuqaal kastoon soo sheer garay biidnillaah kusoo dhawaada mar kale sidaa hore inooga barateenbo waxaan rabaa qiso qurux badan qiso qiimaheeda wadato inaan kuu soo gudbiyo fadlan adigana igu caawi like share comment waxaan kuu rajeynayaa cimri dheer oo caafimaad leh biidnillaah waalidiinteena inta nool allaha u dambi dhaafo oo cimrigooda allaha u barakeeyo inta dhimatana allaha u naxariisto qabrigooda allaha u waasiciyo ku saliya nabigeena maxamed salawaatullahi rabbi wasalaamun calayhi allahuma salli wasallim calaa nabiyina maxamed wacalaa aali maxamed kamaa sallayta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahiima innaka xamiidulmajiid ugu yaraan maalintii nabigaaga ku salli sala allahu calayhi wasalam 5 mar shanta waqti oo min 100 hadaad ku salido waad liibaanaysaa haddii aad kasii badsatana waa ilaahay nimcadiis oo waxaa waaye waa ilaahay ayaa maxaa ilaahay kuu naxariisanayo intaasoo mar ku salli xabiibkaaga ha ilaawin muhiimadda waa salliga nabiga sirta nolosha waa salliga nabiga ha ilaawin walaalkay naftaada iyo nafteydaba ilaahay ha u fududeeyo salliga nabiga sala allahu calayhi wasalam maxaan idin wadaa maanta qiso kale oo qiimaheeda wadata run ahaantii qisadan wallaahi wax badan ayay noloshaada ka bedelaysaa haddii aad cariiri ku jirtay haddii aad busaara dareemaysay haddii aad walwal dareemaysay haddii xoole ay kaa dhumeen haddii aad yacni caqabado badan ay korkaaga soo kore oo cariiri aad nolosha ku dareemaysid yaqiinso oo aamin kadibna ku dhaqaaq sirta aan kuu sheegayo ama waxa aan kula wadaagi doono waxaa hubaal leh haddii aad samayso inaad iiga soo mahadnaqi doonto ama aad iisoo duceyn doonto sidan aniga wanaaga kuula dooray ama aan kula jeclaaday adigana janalka xaqiisa ducadeena markii aan ka gudubnay sida tan ayay ku bilaabanaysaa qisadeenii qiimaha wadatay waxaa jirtay gabar yacni waxay tiraahday gabadha waxaa isoo kortay murug aad u fara badan ay tiraahday oo waxay dhahday waxaan la kulmay carqabado family ahaan ayaan la kulmay tiraahday oo familkayga yacni islaan habaryartay iyo caruurteeda ayaa aad iyo aad culeysyo badan ii saareen waxyaabo badan aniga aan sameynin ayay dusha iga saareen oo cariiri badan ayaan dareemay haddii aan ka maqanahay iyo haddii aan joogaba dulmiga ani unbaa dusha liiga saaraya waxaan ku dhahay habaryar aniga waxaan ma sameynin saan ma yeelin ayadana waxayba taagan tahaybo adiga ayaa caruurteyda saan yeelay adiga family problem ayaa gabadha qabsaday hadday si kasta habaryarta wax u fahansiiso ama si kasta ay wax ugu sheegto lagama yaabo inay fahanta habaryartii keliya ilmaheeda hadalkeeda keliya ayaa madaxeeda maraayay ama dhagaheeda ku dhacayeen waxay tiraahday aniga waan iska sabray oo waxaan kala aamusneen ayay tiraahday muddo sanado ayaan kala aamusneen waxayna tiraahday waxaa sababay caruurteeda ayaa igu direen anigana wax aan sameeyey malahan nabkana aad ayuu u xun yahay oo way nabayaan waxyaabo aniga aan ku sameynin ayay igu sameynaa si kastoo aan u raaligeliyey si kastoo aan oga kartagay maamada wax waan fahansiin waa ayay tiraahday gabadhan waxay tiraahday waa murugooday oo waxay tiraahday reerkii sidii ayaan ku kala go'nay waa yacni familkii problemku wuu sii zaa'iday oo wax isla hadlaaya ma lahan marka waxay tiraahday familka aad ayuu problem u sii galay waxay tiraahday qayli haddaa maqlaysin ka raali noqda maanta waxaa waaye ilmaha ayaa xoogo nagu buuqbuuqaya marka ka raali ahaada marka waxay tiraahday gabadhan waxay dhahday aniga cariiri ayaan dareemay waayo ma jeclan habaryartay inay iga xanaaqdo caruurteeda ayaa isku keendiray ayay tiraahday waxay dhahday waxaa dhacday habeenada ka mid ah maqrib ayaan tukaday waxay tiraahday maqribka intaana tukanin kahor waxay dhahday dhar ayaan feereynayay dhahday dhar anoo feereynaya aniyadeeda waxaa kusoo dhacday bal maad aqrisid xawqalada ama laa xawla walaa quwata illaa billah waxay dhahday xawqaladii ayaan bilaabay laa xawla walaa quwata illaa billah laa xawla walaa quwata illaa billah ayay dhahday waxaa soo galay maqribkii ayaan iska bixiyey meeshii aan maqribka ku fadhiyay waxay tiraahday aan ku tukaday kamaana kicin sidii ayaan u wada tiraahday xawqaladii laa xawla walaa quwata illaa billahi alcaliy alcadiim laa xawla walaa quwata illaa billah laa xawla walaa quwata illaa billah waxay tiraahday waan ku celceliyey waxay tiraahday cisho lama gaarinay dhahday waxay dhahday laa xawla qisada waxay dhahday waxyaabo badan ayay ii furfurtay dhahday oo nolosheeda isbedel weyn ayay ku samaysay waxay dhahday waxaan sameeyey anigoo meesha iska fadhiyo ayaa taleefonkayga lasoo wacay habaryartayna taleefonka wayba iska keen baloogtayba mar hore ayaaba iigu dambeysay dhahday
markii waan yaabay dhahday habaryarteeda markaan teleefonkeeda arkay waan naxay dhahday oo ma kiis kale lagu qabsan doonaa ma wax kale lagu sheegi doonaa ayaan is dhahday waa cabsaday markaasaan ka qabtay waaba ayadii oo calaacalayso oo leh habaryaro raali noqo insaanaan ku yeelnay qaladaan sameynay adiga waan ku aamini weynay caruurteeda ayaan raacay adiga hadallo calaacalkeeda waxay dhahday waa u dulqaadan waay markaas waxaan ku dhahay habaryar aniga hooyadeeda ayaa tahay waxba kuuma qabo caruurtaadan baa isku keentirtay wax aan kuu qabana ma lahan markaas habaryartii waxay dhahday midkii ku dulmiyey oo dulmiga kugu sameeyey asaga ayaa afkiisa ka qirtay caawa anagoo iska fadhina salaada maqrib markii la tukada kadib anagoo iska fadhina ayuu dhahay hooyo hebel heblaayo aniga ayaa ka gardarnay aniga ayaa dulmi ku sameeyey sidaas ula soco waxaan rabaa cafis in la ii weydiiyo walaashayda anagoo dhanba anigii caruurteeda cafis ayaan ku weydiisanaynaa habaryare nacafi cafis ayaan ku weydiisanaynaa ilaahayna cafis ayaan weydiisanaynaa markaas waxay tirahday aniga waxay dhahday awalba waxba umaana qabin laakiin markii hore waan ku laaday tirahday oo siday xaqa darrada iila dhaqmeen ee dulmiga igu sameyn ayaan la gubtay laakiin markii dambe waxay tirahday waan iska cafiyay oo ilaahay wuxuu jecel yahay kuwa cafinta badan oo ilaahay ayaaba aayadiisa ku leh walkaadimiina alqayd walcaafiina can innaas oo ilaahay wuxuu dhahay yacni ku qariya kuwa waxaan jeclahay ayuu dhahay oo kuwa ku qariya laabtooda cariiri oo ku cariiriye yacni xanaaqa ay qabaan ku cariiriye kadibna kuwii qaladka ka gala haddana iska cafiya marka waxay dhahdeen aniga waan iska cafiyey oo awalba waalid ayay ii ahayd walaalahaygana waan cafiyey tirahday laakiin waxay dhahday waxa aan la yaabay dhahday fadliga ay leedahay laa xawla walaa quwata ilaa billaah markii laga tago midda aakhira adduunka ayaaban ku arkay dhahday waayo waxaa waaye waxa aakhira waxay ku dhisaysaa qasriyo ama yacni kayd ayay ku sameynaysaa oo aakhiro guryo jannaad ayaa lagu siinayo kayd ayay ku dhigaysaa laa xawla haddii aad akhriso adduunka ayaaban ku arkay dhahday intifaaceeda waayo waxay dhahday xataa waxay dhahday maalmo kama soo wareeganin dhahday yacni saacado dheer waan yaabay dhahday markaan teleefonkii jaray aniga ayaa dib iskugu laabtay waxay dhahday see ku dhici kartaa see ku suurta gashay markii waxaan dhahay waxaan ogaaday in ay tahay fadliga laa xawla walaa quwata ilaa billah waayo waan yaqiinsaday dhahday oo yaqiin ayaan la imaaday waxa aan ku fadhiyana waa salliga oo waxaan qabaa weyso waxaana tukaday dhahday maqribkii cishihii lama gaarin waxaan ku dhahay markii wiilkiina xilliga uu yacni ay sheegayaan ay leedahay kiiskaas anaga ayaa ku ognay gabadhaasna maqribka ayay ahayd markii laga baxay cisho weli lama gaarin wallahi waxay dhahday ilaahay ayaan u mahadnaqay waxay dhahday reerkiina sidii ayaan iskaga cafiyey waxay nagula dardaarmaysaa in ay yacni maxaa la dhahayay aan aqrisano xawqalada maalintii keliya adiga haddaadan waxba aada aqrinin 100 jeer aqri aakhiradaadana keyd ayay kugu dhigaysaa adduunkaagana nimco naxariis adduun janno adduun ayaad galaysaa igu fiiri oo balbaraawey haddii aad aqrin jirin bal bilaaw maanta samee maqribka haddii aad xilligan muuqaalkan uu kusoo gaaro maqrib uu yahay haddii uu subax kusoo gaaro haddii uu duhur kusoo gaaro haddii casri uu kusoo gaaro bal istaago aqri afka haddii aad jiko ku jirto haddii aad yacni fadhido ilaa intaad musqusha aad ku jirto mooy inta kale bal afkaaga ku celceli hubaal muuqaalkan dib ayaad ugu soo laaban doontaa waadna ka mahad celin doontaa ilaahaygaagana waad u mahad celin doontaa bal baraawe nafteyda iyo naftaada waxaan ku dardaarmayaa inaan dikriga ilaahay aan ula imaano si yaqiina lama rabo maantaan aqriyay waxba way ii tiri weysay beriyaan aqriyay wax way ii tiri weysay ha ula imaanin niyadaada geli oo la imaaw niyad degan niyad diyaar u ah inay akhriso oo yaqiinsan ula imaaw maxaa la dhahay haddii aad adduunka ku weyso aakhirada ayaad ku helaysaa laakiin waadba ku heli adduunka insha allah sida aan rajaynayo sida aniga wax badan ay iiga badashay adigana wax badan kaaga bedeli doontaa bal tijaabi muuqaalkan insha allah haddii aad dhegaysatay oo aad baraaweysay oo aad yacni baraaweyn doonto ilaahay ha kuu fududeeyo nafteeda iyo naftaadaba ilaahay ha u fududeeyo waad ka mahad celin doontaa insha allah waxaan idin leeyahay muuqaalkan meel sare gaarsiiya janalkan waa janal lagu soo gudbiyo waxyaabaha wanaagsan kuwa xumaanta wataba waad sheergaraysiin oo waad faafisiin janalka aad yacni aad kheyrka lagu soo gudbiyo ajir ayay ku xisaabsan tahay oo ajir ayaad ka helaysaa la wadaag walaalaha kale si ay ga faa'iidaystaan anigana ajir iyo xasanaad ayaan ilaahay ku weydiinayaa inuu dambigaaga dhaafo walaalahayga waxaan idin leeyahay